gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Faransiiska Nadiif Cali Maxamed oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka MMTV ayaa waxa uu sheegay inay casuumad u fidiyeen wasiirka arrimaha dibadda iyo taliyaasha ciidanka booliska iyo militariga Somaliland si ay uga qayb galaan xuska dagaalkii koobaad iyo kii labaad ee adduunka oo sanad walba laga xuso dalka Faransiiska oo ay qayb ka ahaayeen askartii ku geeriyootay oo ka soo jeeday Somaliland. mar aan weydiiyay waxa uu qabtay kajaaliyad ahaan intuu xafiiska joogay ayaa waxa uu ii sheegay in dalkan Faransiiska si rasmi ah u diiwaangeliyay dhalashada Somaliland dhawaana ay rajeynayaan in baasaboorka Somaliland lagu iman doono dalka Faransiiska. wadankan 2015 ayuu si official ah maxay tahay faylka dawladda ugu daray maxay tahay nationality Somaliland waa arin faylka dawladda ku jirta waxay ku jirtaa faylka wasaaradda difaaca waxay ku jirtaa wasaaradda faylka arrimaha gudaha laakiin mustaqbalkan waan rajeynaynaa in hawlaha aan ku guuleysano oo marka dadka reer Somaliland oo madaxda ugu horeysa ay ku yimaadaan baasaboorka Somaliland ee wadankan Faransiiska aanu casuuno wasiirka arrimaha dibadda iyo janaka ciidamada booliskaba in aan ku casuuno oo maxay ahayd Champs-Élysées ama meesha loo yaqaan taalada guusha ee Arc de Triomphe ay xafladaha ka dhacaya ee munaasabadaha nagala soo qayb galaan iyaga oo labiskooda xiran oo wadankooda Somaliland matalaya dadkii dagaalkii koowaad iyo kii labaadba ka qayb galay ee ka yimid Somaliland. hawsha runtii in badan ayaan rabnaa in aanu ka dhaadhicino gaar ahaan madaxda Somaliland in ay nala fahmaan taariikhdu waxa weeyaan waa taariikh la soo maray oo taariikh aynaan muxuu ahaa dadkeenu aad u qiimay laakiin wadankan Faransiiska qiimo weyn ku leh maadaama uu yahay wadankii ay khuseysay ciidamadu ay halkan dabcan naftooda ugu waayeen ciidamo badan oo 200 oo nin oo reer Somaliland ayaa wadankan ku aasan oo dhammaan xabaalahooda ay ku xidhan tahay maxay tahay magacyadoodii iyo wadankii ka yimaadeen oo bariga ahaa Somaliland. hawshaas meel fiican ay maraysaa waxaan rajeynaynaa in madaxda Somaliland ay nala shaqeeyaan si taariikhda loo soo nooleeyo xagga madaxda officialka Somaliland waa arin aan rabno in ay nala fahmaan dadka muxuu madaxda Somaliland in ay tahay halkan taariikh oo sida madaxweynayaasha kale uu ka mid yahay madaxweynaha Mareykanka uu imanayo marka la xusayo taariikhda dadkii ka qayb galay dadkii Mareykanka ayaa halkan ku dhintay dagaalkii koowaad iyo kii labaad in ay jiraan dad reer Somaliland oo iyaguna bariga xagga laga soo qortay oo halkan qaarkood ay ku aasayiin ilaa maantadan. tan waa taariikh wadankan buugga dahabka ugu qoran dadka aynu ka hadlaynay reer Somaliland oo 2,000 oo nin ahaa inta halkan ku aasan waa 200 laakiin dad badan oo wax jiray dibadaha muxuu ahaa ku dhintay markii dambe iyo qaar nabad qababa ku noqday. runtii mar kastoo aan arrintaas soo hadal qaadno madaxda dawladda wadanka Faransiiska si fiican ay noo soo dhaweeyaan haday tahay maayarada magaalada ay ku aasan yihiin meelaha xabaaluhu ku yaalaan haday tahay muxuu ahaa wasaaradda difaaca iyo wasaaradda dhaqanka oo labaduba ay muxuu ahaa hoos tagaan hawlahan soo nooleynta taariikhdu. iminka 7 bishii May waxaan la kulnay wasaaradda dhaqanka oo aan muxuu ahaa nagu qaabilay soo nooleynta taariikhda marka wadankan runtii si fiican ay taariikhda u jecel yihiin soo nooleynteeda iyo ka hadalkeeda waxaana loo baahan yahay dadka reer Somaliland inay fahansanaadaan inay halkan wadanka Faransiiska u taalo taariikh ay ku faani karaan. ayaa la mudakar MMTV Jarmalka.